أخي soo dhawaada maanta waxaan rabnaa casharkeeni labaad ee defense resolve ayaan rabnaa inaan sharaxno. Marka shalay waxaan qaadanay videogii ugu horeeyay ayaan qaadanay, maanta waxaan rabnaa videogiina labaad ayaan rabnaa inaan qaadano. Marka shalay hordhac ayuu ahaa, maanta waxaan rabnaa inaan qaadano xoogaa. Waxaan leeyahay qaabka videoga loo soo gelinayo inaan xoogaa idin tuso. Marka video inaad soo gelisid aad rabtid waxaa imaanaysaa meel walba uu kuu joogo waad ku soo geli kartaa. Waxaad tagaysaa meeshay ku qoran tahay file, tagaysaa waxaad tagaysaa meeshay ku qortay import, adana waxaad kasii tagaysaa meeshay ku qoran tahay media ama keyboardkaaga waxaad ka taabanaysaa control I ka taabanaysaa ayaad leedahay. Marka raadinta halka videoga ku yaalo ayaad tagaysaa, kabacdi videoga ayaad soo daraagareynaysaa. Videoga markaad soo daraagariso wuxuu ku leeyahay change project frame rate ku leeyahay, frame rate kiisi wax ka bedelo ku leeyahay, ama waa diidi kartaa ama waa bedeli kartaa. aniga waxaan leeyahay change ayaan leeyahay. Marka waad bedelaysaa. Marka videoga halkan ayuu soo galayaa. Marka videoga halkan uu soo galo waxaa lagaa doonayaa inaad videogii timelinekii aad keento oo shaqadii lagu qabta ayaa la rabaa. waxaa samaynaysaa inaad drag and drop aad soo dhacdo halkan aad keento. marka halkan keento si automatic halkaas ayuu imaanayaa. waa soo jiidaysaa halkaana keenaysaa. qaabkan uu noqonaa. haddaan belay aan dhaho xoogaa halkaas ayaa naga xirantahay meeshaan belay ku dhahaynay. kaas marka belay ayaad leedahay. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaa rabaa soo wajeedid marka belay aan dhaho waa qaabkaas ayuu noqonayaa. marka wuu ka duwan yahay kuwii hore oo kisada Camtasia Premiere Pro. asiga qaabkan oo u socona kuwii horena wadadaanay u soo jireen. marka xoogaa way kala duwan yihiin. markaan halkaas aan ku celiyo halka aan ku celiyo qaabkan oo u soconayo dhankan oo u soconaya. marka waa iska caadi. marka waxaa sameynaa codka waxaa rabaa inaan remove aan ka dhaho. waxaan leeyahay right click aad leedahay, kabacdi waxaad leedahay enable and move aad dhehaysaa. marka dhahdo dan belay aan dhaho soo ma jeedid without cod waaye. marka cod ma lahan. marka wadadaasaa samaynaysaa. marka waxaa rabaa qaabka loo jarjarayo. marka video wadadaasa loo soo gashaa qaabka loo jarjarayo. marka hadda waxaan joognaa meesha ay ku qoran tahay cut ayaan joognaa. cut waa wadadii wax lagu jarjarayo waaye. marka waxaa samayn kartaa videoga marka sidaas kugu dooran yahay xoogaa intaan keenaynaa halkaani oo maqaska ama split clip ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. automatic video waa la jaray. haddana xoogaa waad wadaysaa, waxyaraa soo wadaysaa. haddana waxaad leedahay kadaan leedahay, halkaasaad ka jaraysaa. qaabkaas videoga loo jarjarayaa. marka haddana waxaan imaanaynaa qeybka ay ku qoran tahay oo edit ay ku qoran tahay tageena. marka editka xoogaa wuu ka duwan yahay qaabka hadda kadkan looga jarayo. marka farqi yar baa u dhexeeyo. marka asigana waan arki doonaa editka markaan imaano xoogaa wuu wareegsanayaa. marka editkana facekan uu noqonayaa. facekan markuu noqdo marka wixii hadda soo jarjarnay waa kaas. haddaan belay aan dhahno soo ma jeedid hadda shaashadda waa midda ugu saxsan weeye oo ama timelineka sidii oo hore aad ugu soo baratay qaabkaas u soconaya. marka markaan jarayno koodii waxaan soo aragnay meel ay ku qornayd split ay ku qornayd waan aragnay clipping. hadda laakiin sakiintaan adeegsanaysaa. sakiintaasa soo qaadanaysaa, halkaasaa ku dhufanaysaa, kada leedahay halkaa doontaad ku dhufanaysaa. sakiinta ayadaaba waxay wadataa guidance line wadataa, halkaasaa ku dhufanaysaa. ma fahantay? marka qaabkaasaad u jaraysaa. marka video halkaana ka wadaysaa, halkaan aad ka wadaysaa. marka sakiinta kadib waa iska celinaysaa. wixii adiga aadan doonaynin haylaada iska saaranaysaa. kadib waxaad leedahay keyboardkaaga aad ka leedahay delete aad ka leedahay, ama waxaad taabanaysaa meelay ku qoran tahay back space ay ku qoran tahay aad taabanaysaa. soo ma jeedi back space markaan taabto videogii meesha wuxuu noqonayaa firaaqa ayuu noqonayaa. ma fahantay? marka iskuma imaanayo. haddaan control z aan dhaho oo keyboardkaygi delete aan ka taabto oo videoga aan doorto sidaan aan u doorto keyboardkaygi delete aan ka taabto videoga automatic wuu isku dhegayaa. laakiin haddaan back space aan taabto videoga iskuma dhegaayo. soo ma jeedid? marka waxaa samaynaysaa videoga si iskaaga dhego waxaa samaynaysaa maxaa lahayay keyboardkaaga waxaad ka taabanaysaa deleda ka taabanaysaa. marka videoga sidaas aad u delete garaysid keyboardkaaga delete aad ku taabanaysaa.
marka weli laguguma soo celinayo oo boontiga aad rabto laguma soo dhejinayo. waxaa samaynaysaa right click ayaad leedahay, waxaad leedahay basti haddii wixii ku yaalo oo kale ayaad basti leedahay, ma fahanti? ama waxaad leedahay halkaana ku dhufanaysaa, halkaan markaa ku dhufatid waxaad leedahay wuxuu ku leeyahay rebel delete ku leeyahay, ama keyboardkaaga waxaa ka taabanaysa shift plus backspace ka taabanaysaa. markan okay halkaan aan dhaho automatic waa lagu soo dhejinaya. marka waa inaad fahantaa, waa qofkii oo u bartay maxaa la dhahayay Camtasia oo soo bartay maxaa la dhahayay Premiere Pro xoogaa wax ku soo bartay. waxaani ma dhibo anig weligeygii haddii videogii ugu horeeyay waaye oo aniga haddaan kusoo shubay naftay weligey maan markin, laakiin kuwa kale markaad aragto kuwa kale kuma dhibayaan, waayo laba ka mid haddaad barato oo editingka video editingka si fiican ugu barato kuwa kale kuma dhibayaan, waayo magacii un lagaaga dubay. marka waa ina adigana si fiican u fahantaa. marka wadadaas samaynaysaa, halkaana tagaysaa, sakiinta soo qaadanaysaa, waad jaraysaa. marka sakiinta meel walba waad ka jari kartaa, muhiim ma ahan inaad kan aad soo qabato marka dulgeendis aad dushiisa aad ka jartid, muhiim maan. marka sakiinta aad soo qaadato waxaad ku soo celinaysaa halkii selection mode-ka ah. selectionkan waxaa kusoo qaadanay waxaa leeyahay Illustrator waan kusoo qaadanay oo magaciisi uu yahaa, marka waa isku wada mid waaye dhammaantoodii. marka ka bacdi haddaad delete garaynayso waxaad taabanaysaa delete keliya, waa taabanaysaa automatic waa isku celinaya, ama keyboardkaaga waxaa ka taabanaysaa shift plus delete aad leedahay. marka intaasi wadda ayay ku delete garay kartaa. marka waxaa rabaa inaan videogana ku dheeraado ma rabo, marka inaan soo kookooba rabaa maalin walbo in yar kooban inaan qaadana ayaan rabnaa. marka waxaa laydinka rabaa inaa idinkana baraatika fiican aad samaysiin, marka videoga aad daawanaysiin horen aad ka baraatikaysaan. marka sidaas ayaa laydinka rabaa. marka videogiin halkan ayaan kusoo afmeeraynaa insha allah. beejkaasina 10,000 hana loo gaarsiiyo idinkoo mahadsan, anigana si mudawacnimo oo ku jirta ayaan idinku adeegin doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.